khasaaradan ka dadka bilaabo laba carruur ayaa ku geeriyay dabka marka waalidiintu garan ma meeku maqana waa waqti fiida marka waadinka arkay meeshaas koraran dhibaatada naga haystana dabdimisahan wadadii baa naloo soo banaan laayay waqtigan aad aragtaan imika 8 ilaa 9 ilaa 10 meelaan soo maraan weynay hoolkii baad garaacaysaa leerkii baad garaacaysaa waad degaysaa waad la dagaalamaysaa cidi ku bareemayso marka fariinkan waxaan uga dirayaa wadayaasha in haddii alarmka ama qayldhaanta maqlaan ee ogaadaan inaan dhiilo ku ordino inaan dad seef garanayno soo badbaadino waa inay naga baxaan markaanu meeshaan nimidna meel allaaliya meelaan dabi ka baqtinaanu weynay dadweynihii hargeyso dhanka ayaa ka soo dareeray midda kale meeshu way xidhneed intaan banayna saacadda nooga qaatay marka maxaa la yidhaahdaa meeshu isku raran bahayd wixii sababay weli imika ma heli karno booliiskaa baadhi doonaa khasaaro ka dhashay 2 carruur dhintay 2 carruur taliya mar kasta oo aad hadashaan waxaad sheegtaan in meesha aad soo maraysaan dhibaataydi ka haysato ciidan miyaydaan lahayn meesha fura oo qasab ku furayna waad ogtahay dadweynuhu qasab xaad ku furay 100 baabuur waane seed u furi doonta waanu la degnaa soo kulema ciidanka booliiskaan noo bannaan karin iska dhaaf cid kale marka dadweynuhu haddii aan xil iska saaraynin dee mushkilad noqonaysaa labada qof carruur ay dhinteen dhakhtaranu geynay dabka waxa dhaliyay dee waa weli waa in la baadhay imika hawshii dabdamisaan ku jirnaa marka aad iyo aad bay u mahadsanyiin booliiskoo nala shaqeeyey guddoomiyii gobolka waa kanoo nala shaqeeyey meeyarkii ku-xigeenkiisii iyo madaxda meesha isugu yimid wax kaloo khasaara maxaa laydiin sheegay labada qof ee dhintay marka laga reebo wax kale nooma sheegine gurigunbaa baaba'ay gurigu maadaama jeegadahaa gurigunbaa baaba'ay marka waalidiinta waxaan leeyahay carruurta guryaha ka tegaysaan keligood iska daaya had iyo jeer la jooga haddii ka tegaysaan jaarka u dhiibta haddii kale carruurta kaxaysta saasaan ku sheegay geeridu waa 2 qof runtiina marka ugu horraysa anugu dadka reer Hargeysa waxaan ugu baaqayaa mar kasta oo ay arkaan ciidamada dabdamiska oo gurmanaya qof kastoo gaadhi wataa inuu waddada iskaga baxo naf bay badbaadinayaan minid iyo daqiiqad iyo ilbiriqsi ka luma wuxuu galaafanayaa nafo fara badan shacabka waxaanu ka codsanaynaa mar kasta oo ciidamada dabdamisku ay gurmad ku jiraan qof kasta waddada inuu iskaga baxo arrinta waddooyinka xidhan iyo magaaladeennu siday noqotay magaalo qaybo ka mid inay isku raran yihiin meel loo maraa aanay jirin tani waa fariimo hore oo badanna shacabku way maqli waayeen dawladdu way isku noqonaysaa dawladda hoos ahaan waa isku noqonaynaa laba la isku heli maayo marka dadka waddooyinku ka xidhan yihiin laydhaa waddooyin baa laydiin banaynayaa inay qayliyaan oo ay yidhaahdaan shacab masaakiina lagu tumanaya dawladdu ku tumanaysaa marka loo soo gurmanayana meelo alliyaale meel loo soo maray in la waayo insha allahu tacaala tala qaran baanu isugu noqon waanu tashanaynaa qorshaannu dejinaynaa waddooyinka xidhan guddoomiyaasha degmadu waxay amar ku haystaan qorshahana ku jirta waddo kasta oo xidhan inay furaan waddooyinka cidna ma xidhan karto waddooyinka magaalada Hargeysa ku yaala guddoomiyaasha degmadu waxay amar ku haystaan inay furaan waddooyinka xidhan oo dhan hawsha inta hadhay iyo askariga dhibaatadu soo gaadhay haddii ilaahay imka carruurta iyo hawshooda iyo sida loo aasayo iyo faamiligaas sida loo barbar istaagayna insha Allah anigii guddoomiyaha barsaabku haddaanu israacaynaa dhakhtarkii baanu tegaynaa insha Allahu tacaala inta qabyada dhibaato weyn mushkilad weyn baa halkan ka dhacday markay mushkiladu san oo kale u soo boodo tahayna waxaan hadda u baahnaa anigii guddoomiyaha dhakhtarka tagno carruurtii inta nool soo eegno labadan carruur ee kala dhintayna sidii markaa berri subax loo aasilaa qorshaheeda aanu gallo waa u soo jeedaynaa doorkaygana waa qaadanaynaa dowladhoose ka ahaan faamiliga askariga qaranka u shaqaynaya ee shaqada qaranka ku maqan waan u ducaynayaa anigoo ku hadlaya magaca magaalada Hargeysana tacsi weyn baan u dirayaa duca fara badan waan u dirayaa qarankiisuna insha Allahu tacaala uu barbar istaagayaa murugadaan la qaybsanaynaa waa murugoonaynaa dhibta soo gaadhay iyo ubadkaa ka dhintay waa annaga naga dhintay dhibaatada soo gaadhay waa dhibaato annaga na soo gaadhay naxdin bay nagu tahay dareenkayaga waxaanu dareemaynaa intuu dareemaya caawa culays ayaan aniguna dareemayaa maayir ku-xigeenku dareemayaa marka insha Allahu tacaala dee waanu dadaalaynaa waxba la hadhi mayno insha Allahu tacaalana ummaddan reer Somaliland maalin walba intuu dabdhaco
waddo aynu soo marno waayi mayno dawladdu awooddeeda dawladnimo isticmaali doontaa waddooyinka xidhanna way furi doontaa ninka waddo xidhaana wuxuu gelayaa dembi weyn oo aan laga saamixi doonin oo sharciga uu ku wajihi doono insha allahu tacaala halkan ay dhibaatadu ka dhacdayna marka berri waagu baryo aan aaska ka nimaadno ayaannu imanaynaa waddada xidhantay iyo waddooyinka xidhan oo dhanna go'aan baannu ka qaadanaa annagoo taaganna waddada waa la furaya insha allahu tacaala ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo eheladadoodii iyo dadkii dhalay askari ciidanka booliiska jamhuuriyadda somalilan ka mid ah oo weliba howlgal shaqo ku maqnaa ayaa carruurtan dhalay waannu la qaybsanaynaa caawa murugada oo uga tacsiyadaynaynaa haddii alla idmo cisbitaalkaannu tegaynaa sidaa maayarku sheegay markaannu imika halkan ka baxno carruurta inta hadhay iyo hooyadood baannu eegaynaa insha allah berito sidii loo aasi lahaa labada carruur ee dhintay dhibaatada runtii waddooyinka xidhan waa dhibaato ummaddu ay gacmahooda ku samaysay sidaa maayarku sheegay isku heli mayno inaynu waddooyinka xidhno oo aynu dhisanno iyo in runtii aynu hadhow qaylinno marka dhibaata dhacdo ciidanka dabdamiska iyo ciidanka booliiska oo saacad walba heegan ku jira waannu mahadnaqaya oo runtii si nafhurnimo ah u shaqaynaya dadweynaha bulshadana waxaannu leennahay war marka alaamka aad maqashaan dabdamiska gaadiidku waddooyinka ha ka baxo ha loo furo arrinta waddooyinka way soo noqnoqotay dhibaatooyin badan baa ka dhacay insha allaahu go'aan culus baannu ka qaadanaynaa gobol ahaan iyo degma ahaan annagoo iskaashanayna waddooyinkaa xidhan ee caasimadda oo dhan in hawlgal ballaadhan oo dawladdoo dhamm ay ka midaysan tahay in lagu banneeyo haddii ilaahay idmo khasaarahan caawa dhacayna runtii waa khasaare culus dee baadhistiisana ciidanka booliiska ayaa loo daynaya haddii ilaahay ka dhigo waxa sababay carruurta ma laydin sheegay da'dooda ilaa hadda carruurtu dee hawlgal baa lagu jiray waa carruur yaryar meydkoodii baa la qaaday cisbitaalku ku jiraa waalidiintoodu baynu weyddiin doonaa da'dooda adiga